anigu waxaan maqli jiray gari ma ka baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku geyda adiga talo ma ka go'da alla ilaahay ambaroy aniguna iyadoon cabaadkaagu ku jirino heesa macmacaan yihiinaan maqli jiray abdulo wal mooshidi wal walba faashiyon anagaden heeska ambarata gaadi faashiyon aleere warnimayo horta war ma haysaane 10 jeer horena waa la idin sheegay xildoonka iyo naagadoonka waxa ka dhaxeeya beenta waxaana la yiri jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa uu waaya sheeko oo heli maayo caashaq waxa la rabaa haweenka markii la shukaansanayo inaan loo sheegin daacad wixii jirana aad ka qariso dabeedna la soo kaxeeyo adoo dabaq kula heshiiyey qol jiingada lagu arooso markaasna dagaal bilowdo ilaa waasaad rabteen markuu wiil gabar siraayo ama gabar wiil sirayso waxay isdhahan xabiibi xalan kugu soo riyooday hurdadii baan ka dhaxbaaray sidaan ku raadinayay cidiyihii baa isiibmay adduunka adaa u fiican hadaadan salacag siinin adduunka adaa u liita magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxa ka dhaxeeya beenta haddaynaan ugu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhagaysta marqaatina iyo ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhaxaysa beenta war xildoonku walaadka sheegaas runtaw laakiin bilaamayd adaka been abuurtay sababtoo ah gurigii hoob la jeeyay dabagla kale heliyo buush la jeeyay meel say u taalaalo la yaal inoo orto la faday hoob iyo doon hayna wareeda war ma haysiine waxaan maqli jiray dalka wali dad baa nool qaar damiir laha jira anahaado ah nin wad sheekada maday isaaqow adigoon haansidin way iga balaayo war fuustooyinna sida haduu rabay warka naga dhageysta fadhigii baarlamaanka shalay dood culus ka dhacday waxaana su'aalo kulul la weydiiyay wasiirka warfaafinta amu ku gubtay war dadka su'aalaha weydiiyay wasiir maareeye waxa kamid ah xilwaan fiqi wuxuuna yiri xilwaankeedu moodaan inuu mucaarad yahay warkiisa ma qaadataan warbaahintan ummadda ay ka dhaxaysa ay maxaafadii mucaarad ma leh yaa ku amray dhaqanka aad ku sameynaysa warbaahinta warka waad naga dhex gashay xildhibaan daahir amiin jeeso wuxuu weydiiyay wasiirka kalamaan maxaa idin daba dhigay runtay sheegtaa dadka ay wax ka sheegtana anaa kamid ah ma runtaa diidantiin mase waxaad rabteen inay idin faafisay diiday yaase idin yiri abwaana loola dhaqmaa sida shaqaalaha rayidka waxaan maqalnay abwaanin ka shaqaysa inaad ka curyaamiseen wuxuu intaas ku sii daray mashruucan iskumaan oo kalama ku dagaalamaysaan xageed ka keenteen marka ma ku jawaabay arada war ma haysiine maaray waxa siri kalamaan mashruuceeda awadato inakan iskumaan waa wadanayna gooyo wada wal mooshidi wasiirkana too ka hoos bati kalamaan sheekada leeyahay horta mashruuc ma iskumaan oo mashruuc ku weeldayna horta ba kalamaan la lahaay waana kalamaan yoonay iskumaan ba ani lahaay ereyga been abuuradi walaajani idaacada dawladda ma ka hoos weerna kalamaan iyo iskumaan wala leeyahay lamada barhaadiyo kulmiye wala langi buum islaameed hadayna meel isku weeriyo la fadaawdaayay warmayanu waxaan la yaabanahay maaray ma fakara miya cid u fakarta sama waay midda kale afkiisa dhagtiisu isma maqlaan miya maalin kasta waxaan maqlaa wax islaamada soo koobiyeynaya kalamaan waa koobiyey wasaaradda inta masrax ka dhisto wuxuu la baxay masrax furan oo 2 sano ka socon jiray TV-ga Universal kooxdii qaranka waa berina waa koobiyey oo koox yar oo wiil kuulan u xiran yihiin uu wato uu niyu waa beri ula buxuu wata marka yaabnayo odaga say wax ka yihiin wariyaada dhaafa mas'uuliinta wasiirkeennuna wax kastu sameeyo waa ku maadsan yahay iska weyro war xilwaanada wasiirada ay u jilicsanaadeen oo maalin kasta iska wacanay ra'iisul wasaare khayri madaxweyne farmaajo may wacan oo su'aalo weydiiyaan war xilwaanadu haday u wacan farmaajo khayri waxa xigaysa maalinta dambeeyay dollar yamyamooda iyo James su'aalo wacan markaas oo meesha dhan lagu kala tag maadii su'aalo bataan aro lug yaxas dhiiq laga ma dhaqi kare joog ardooyoobo mahmaada ku dheelin ma jadhooqo midba mar aan la bixiyaa waaye abdulo wada naftaba ko galdanta geel hooba dhooba ka dhii lug luga lambiyew
madeeyo weligaa geel luqluqaayo intaad ku aragta been badanida warwar ma haysaane waxaa maanta baarlamaanka u yeereen wasiirkii gaashaandhigga su'aalaha asaga ka waaweynna waa la weydiiyey jawaabo baarlamaanka ka waaweyn asaguna ma bixiyeen war asagu ma daaweyno jawaab waafiya ma bixi karo maskiinka shaaki ka weynay u gelsheen xildhibaan cabdiraxmaan odowa oo ah musharaxa galmudug waxa uu weydiiyey wasiirka gaashaandhigga ciidamada la geeyey dhuusamareeb maxaad ka og tahay ma sidii baydhabo roobow looga soo afduubay ayaa la rabaa anigana inay dhuusamareeb iga soo afduubaan horta filaarti korlangamowlan walba filooya laari may kale cabdiraxmaan su'aalay sidii roobow ama xildhibaangu war wasiirka hanabin sidaas uma jawaabini war hadda ka hor waxaan maqlay wiil yaraa xil weyn loo dhiibay markaasuu wuxuu maqlay dadku maahmaahaya xil dhallaan gartay weyna markaasuu wuxuu u qaatay in isaga la haysto kadibna inta xanaaqay ayuu cuqdad la xanuunsadaa la yidhi war wasiirkan taariikhdiisa waxba kama taqaanaane hadda ka hor waxaa la yidhi markii la magacaabay ayuu wasaaradda gaashaandhigga tegey albaabka horu wuxuu ku sii maray sawirkii jenaraal daa'uud oo ku dheggan gudaha markuu tago xafiiskii fadhiisto wuxuu yidhi sargaalka iridda ku sawiran oo sida quruxda badan u labisan ha la ii keeno markaasaa loo sheego waxaa la yidhi waa jenaraal daa'uud wasiir markaasuu wuxuu yidhi jenaraal daa'uudka laftirkiisaba ii keena markaasaa waxaa la yidhi mudana wasiir ma joogo markaasuu wuxuu yidhi ma fasaxuu ku maqan yahay yaa wasiirka maydaa beentiisa jenaraal daa'uud fasax dheerow ku maqan yahay lankoo hadda ka hor usoo handhagaba waan aragtiis deeganka dambe way handhabeeli madaasa dadlatiyo fadheedii olka murma waa deegay mayliliya gurbiga u eedo mat isaag wiinye gurbiga umad nuurow eedaan wiinye war gurbiga hasan bashiir ak wiin liliya dheegi ma isun gurbile wiinanka sheego ay taana awsan enow diigijee ku wiinyaayeen war hadda ka hor waxaa la yidhi libaaxa wuxuu xandhegaystay laba dumar oo wada hadlaysa oo mid baadi weydiisanayso markaase waxay ku tidhi ariga kaa maqanood goobaysid